halkani waa Cabdiraxmaan Dayb iyo warbaahinta Toronto Media. Maanta waxaan idinla wadaagayaa warbixin kooban oo ku saabsan buuraha dahabka laga qodo ee dalka Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Awdal, magaalada madaxda Boorama. Buurta loo yaqaan Awdal waxay ku taallaa magaalada Boorama dhankeega bari, waxayna kiiloomitir kooban u jirtaa magaalada madaxda gobolka Boorama, halkaas oo dad fara badan ay ka qodaan dahabka. godadka laga qoday buurta ee cajiibka waxaa ka mid ah cabirkooda 110 mitir ilaa 200 mitir. haddaba ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkan oo dhammaystiran waxaad ku daawan doontaan buuraha waaweyn ee ku hareeraysan ee Ilaahay ku manaystay. buurahaasi magacyo kala duwan ay leeyihiin. buurta dahabka laga helay waxaa loo yaqaanaa baan idin idhi Awdal baa la dhahdaa. marka qisadeeda iyo qaabka dahabka looga qoday iyo nidaamka oo dhanba waxa uu ku galay Dhamays Media Production oo muuqaalka inoo daadahinaya. haye Dhamays Media Production siida cabaar markii aanu soconay waxaanu soo gaadhnay kaam yar oo ka sokeeya buurta, kaasi oo ay degan yihiin ganacsato wax ka iibisa dadka dahabka qoda waxna ka iibsata, oo dhowaan ka dhisantay buurta dhinaceeda bari. hore ayaanu u dhaafnay, waxaananu gaadhnay halkii aanu u soconay ee khayraadku yaalay iyo rugtii dahabka. si qoto dheer umaan fahmin ujeeddada buurtan magaca loogu bixiyey, wakhti badanna kumaan bixin inaan baadho. markiise aan rogrogay waxaan u maleeyey inay xoolaha u daaq taga u daran tahay, siiba geela. buurtan idiin muuqata ayaa la yidhaa Awdal. waa buur baaxad weyn oo dhagax adag. waxaad aragtaan baca yaryar oo fara badan oo buurta ku teedsan, kuwaasi oo aad mooddo aqal Soomaaliya badan ama goob ay reero degan yihiin. mase aha ee waa meherado ama godadka buurta lagaga dhaadhaco ee dahabka laga soo guro, kuwaasi oo qaarkood ay hoos u qodan yihiin in ka badan 200 oo mitir. markii aanu goobtan gaadhnay waxaa nagu soo dhoweeyey dhalinyaro door ah oo ka shaqaysata buurtan kana ganacsada dahabka. waxay aad u xiisaynayeen in la xaal waraysto lana ogaado duruufaha ku gadaaman. isla markiiba waxaanu bilownay inaannu booqanno godadka qaar ka mid a, annagoo ugu horrayn ku dhaadhacnay godkii u horreeyey oo uu leeyahay Khadar Xuseen Riiraash, oo ahaa mid ka mida labada wiil ee Boorama naga soo raacay, oo isagu si gaara oo gobonnimo badan noo soo dhoweeyey, islamarkaana na baray asxaab kale oo ay isaga saaxiibba yihiin. waxaana na dhex martay sheekadan. daawadayaal, imika waxaanu ku sugannahay buurta Awdal dhinaca bari ee magaalada Boorama, oo ka mid ah meelaha khayraadka dabiiciga ah ee uu hodanka ku yahay gobolka Awdal ay muwaadiniintu ka shaqaystaan. ninkan dhalinyarada ah ee ag fadhiya waxaa la yidhaahdaa Khadar Xuseen Riiraash. buurtan imika aanu saaranahay dadka ka xoogsada ayaa uu Khadar ka mid yahay. godkan aad arkaysaan ee aanu dul fadhino waa mid ka mid a godadka khayraadka dahabka laga soo saaro, oo ninkan iyo koox kale oo saaxiibadiis ahi ay ka wada shaqaystaan. waxaan jeclahay ugu horreyn Khadar inaan marka hore weydiiyo, horta goortii ugu horreysay ee halkan in dahab ku jiro la ogaaday shaqo laga bilaabay goorma ahayd? waxay ahayd 2021. 2021. adigu miyaad markaa dadkii xilligaa wax ka bilaabay ka mid ahay? waan ka bilownay dadkii xilligaa wax ka bilaabay baan ahaa. haye ka bacdeen waxa sidanay saacado markaa ma jirin godadkan sidan loo qodaa. haye waxa la raadin jiray nagad ayaan dhakada ka guri jirnay. nagadku waa maxay? nagadku waa isaga oo yacni aan laga tumin wax dhagaxa, laakiin isagoo walaayadiisii oo nadiiftiisii ah ayaa saacadaha kusoo qaban jirnay oo godadka yar qodi jirnay. ka bacdi markaa ilaa aduu sanad ayaan saacadaha ku shaqaynaynay. intaa wixii ka dambeeyey ilaa maanta waxaanu ka shaqaynaa godadka. saasaanu markaa wax kula soo baxnaa oo shiishaasaanu imika qodnaa. Khadar, godkan aynu dul fadhinaa imisa mitir buu imika hoos u qodan yahay? imika godkan wuxuu hoos u qodan yahay ilaa 110 mitir ilaa 100 mitir. 110 mitir waa 110 tallaabo. waayahay, markaa miyuu qalqaloocaa mise waa toos baa lagu dhaadhacay? mayuu qalqaloocaa.